qaraxyo waaweyn ayaa gilgilay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran aroornimadii hore ee saaka oo Jimce ah iyadoo wasiirka difaaca Israa'iil uu xaqiijiyay in diyaaradaha dagaalka ee dalkiisa ay weerar ku qaadeen Iran. Tallaabadan hubanti la'aanta ah ayaa ah in ay horseedi doonto dagaal buuxa oo ka dhex qarxa labada dal ee Iran iyo Israa'iil iyo weliba guud ahaan bariga dhexe. Cabirka weerarka iyo khasaaraha ka dhashay weli si rasmi ah looma cadeyn. ahaatee waxaa la filayaa in Iran ay si degdeg ah uga falceliso iyadoo la tuhunsan yahay in ay qaadayso weerar ballaaran oo gantaalo balastik ah. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa weerarkan ku tilmaamay tallaabo isdifaaca oo hore loo qaaday wuxuuna ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo gaar ah guud ahaan Israa'iil. waxa uu intaa ku daray in weerar celis ah la filayo waqti dhow. khayladaan ayaa laga maqlay magaalada Qudus ee Israa'iil xoog ay ku haysato iyo magaalooyinka kale ee dhulka Israa'iil ay haysato. dadka degan Tehran caasimadda wadanka Iran ayaa sheegay in ay maqleen qaraxyo waaweyn halka sarkaal sare oo Iran ah uu sheegay in diyaarado dagaal ay hawada sare u kaceen si ay u dabagalaan diyaaradaha Israa'iil. Maxamed Jamaali oo taagnaa saqafka dhisme ku yaala agagaarka harada Chidgar ayaa sheegay in la arkay laba diyaaradood oo si xawli ah u duulaya kuna wajahan saldhigyo ciidan. waxaan arkayaa laba holac oo waaweyn iyo uuro ka kacaysa laba saldhig oo ciidan oo ku yaala bariga Tehran ayuu yiri. weerarkan ayaa ku soo biigmaya iyadoo Mareykanka uu hogaaminayo dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu gaaro heshiis ku aadan nuclearka Iran. inkastoo Iran ay ku eedeysay in Israa'iil weerarkii ay ku soo qaaday Tehran Mareykanka uu ka gacan siiyay. weerarkii saakay Israa'iil ay ku qaaday magaalada Tehran ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen saynisyahano u dhashay wadanka Iran iyo weliba iyadoo saldhigyo waaweyn oo hubka nuclearka uu u yeelay oo diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay burburiyeen. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu ka hadlay weerarkan waxaana uu sheegay in weerarkan ujeedkiisu uu yahay in lagu xakameeyo ololaha barnaamijka nuclearka ee Iran iyo farsamooyinka ay doonayso in nuclear ay ku yeelato. Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale weerarkan ugu magac daray libaaxi soo toosay. weerarkan Israa'iil ay ku qaaday Iran ayaa ah mid ku soo aadaya kadib markii Iran kal hore ay bixisay hanjabaado ku aadan in saacad kasta ay weerari karto xarumaha Israa'iil ee hubka waaweyn ay u yaalaan. hase ahaatee Israa'iil ayaa kaga hormartay. Iran ayaa muddo dheer waxa ay taageerisay kooxo hubeysan oo ka soo horjeeda jiritaanka Israa'iil waxaana lagu eedeeyaa in weeraro qarsoodi ah ay ku qaaday danaha iyo kaabayaasha Israa'iil ayaa la rumaysan yahay in ay tahay wadanka kaliya ee haysta hubka nuclearka ee bariga dhexe. waxa ay Iran u aragtaa khatar jiritaankeeda ku ah waxaana ay muddo dheer ay waday weeraro sirdoon oo lagu beegsanayo barnaamijka nuclearka Iran. saynisyahano iyo xarumo muhiim ah. dagaalka hoos u socday ayaa si buuxda u soo baxay kadib markii weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7 Oktoobar 2023 taas oo horseeday dagaalka Gaza iyo iskurimaadada ballaaran ee gobolka ee u dhaxeeya Israa'iil iyo xulafada Iran ay ka mid yihiin Xisbullah ee Lubnaan iyo kooxo hubeysan oo ka jira Ciraaq iyo Xuutiyiinta Yemen. weerarka Israa'iil ay bishii Abriil 2024 ku qaaday xarun ay Iran ay maamusho oo ku taala Suuriya ayaa waxa ay sababtay in Tehran ay si toos ah uga jawaabto duqeyn ballaaran oo gantaalo ah. Iran ayaa weerar la mid ah qaaday dhamaadkii sanadkii hore kadib markii Israa'iil ay dishay Ismaaciil Haniya hogaamiyaha Xamaas xilli uu booqasho ku joogay Iran iyadoo sidoo kale Israa'iil ay dishay Xasan Nasrullah hogaamiyihii Xisbullah. ha yeeshee weerarkan Israa'iil ay ku qaaday bartilmaameedyo gaar ah oo ku yaala magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran ayaa ah mid la wada sugayo jawaabteeda. inkastoo Iran darbaxyo xoogan ay soo gaartay islamarkaana saynisyahano ka howlana farsamaynta hubka nuclearka Israa'iil halkaasi ay ku qaarijisay sidoo kalena ay beegsatay xarumo muhiim ah oo Iran ay doonaysay in ay ku farsamaysato barnaamijkeeda hubka nuclearka ah.